asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan khiyaarta soo dhawaada waa mar kale waa barnaamij kale iyo kista t v waa maalin jimco ah 6 bisha juun 2025 sidoo kale waa maalin ciid ah dhammaantiin waxaan idin leenahay ciid mubaarak ku bilaabay waxaa soo ifbaxay khilaaf weyn oo culus oo dhex maray madaxweynaha dalka Mareykanka iyo la taliyihiisii arrimaha dhaqaalaha ee hadda shaqada ka dhamaatay Elon Musk waxa ay jira in siyaasado fara badan oo la isku diidan yahay dalkan Mareykanka ay ka socdaan Elon Musk ayaa taariikhiyan waxa uu ahaa nin dimuqraadi ah dimuqraadiyiintana la codeeya maadaama uu u arkayay dimuqraadiyiinta in ay u janjeeraan siyaasadaha isaga uu duuliyo ee ku saabsan xagga isbedelka cimilada adduunka Elon Musk ayaa isagu waxa uu iska leeyahay shirkadda ugu weyn ee soo saarta gawaarida ku socda bateriga oo aan gaaska isticmaalin qaacana aan bixin isaga oo uu ka hela dhaqaale fara badan dawladda Mareykanka dhaqaalahaas ayaa waxa ay ku siiyaan qofkii gata gaari electric ah oo koronto ku socda oo aan gaas isticmaalin dhaqaale gooni ah oo la siiyaa jirta dawladda Mareykanka ay ku abaalmarinayso dadka iibsaday gawaaridaas waxa marka ka faa'iidi jiray shirkadiisa Tesla marka barkood waxa ay bixiyaan dawladda federaalka Mareykanka waxay bixisaa qofka si oo uga guuro gaari gas ah oo u guuro gaari electric ah $5,000 oo bonus ah in ay siiso qofkii gatay gaariga Teslada waxa marka jira siyaasadda noocaas ah waxa badana duuliya dhanka dimuqraadiyiinta marka dhanka dimuqraadiyiinta waxa uu kala siman yahay oo uu isku siyaasad ay ka yihiin xagga raadka ay ku leedahay gawaarida gaaska isticmaalo oo qaaca bixiya isbedelka cimilada adduunka raadka ay ku leedahay programkan waa program isaga uu badana iibiyo Donald Trump on the other side ma aaminsana in waxan uu akhrinayo adduunka ay ka jiraan mana aaminsana shirar badan oo ka dhaca Europe oo looga hadlayay isbedelka cimilada iyo raadka ay ku leedahay carbon kaba oo gawaaridan qaaca bixinayo uu ka soo kacay dhaqaale inuu ku bixiyo Mareykanka uu support gareeyana uu diiday arrimaha noocaas ah marka Elon Musk ayaa waxa jirta in 2016 uu la codeeyay dimuqraadiyiinta oo Hillary Clinton uu codeeyay 2020kiina wuxuu u codeeyay Joe Biden waxa uu ku soo biiray marka qolyahan Republicaanka ah ama jamhuuriga wuxuu ku soo biiray 2022kii kadib markii uu isaga hor imaadeen arrimo ku saabsan jinsiyadaha nimankan carruurta u roga gabdhahana wiilasha u roga ayuu ku nacay dimuqraadiyiinta sida uu sheegay marka siyaasadaas bay isaga hor imaadeen laakiin siyaasadda kale ee ku saabsan xagga cimilada iskuma diidana isaga iyo dimuqraadiyiinta Donald Trump maalinkii uu ka badbaaday isku daygii dilka ayaa waxa garab istaag u muujiyay Elon Musk kadib waxa dhacday in Trump uu ku guuleysto inuu aqalka galo aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo uu helo kuna guuleysto madaxweynenimada waxa ay saaxiibkiis uu markiiba ku abaalmariyay shaqo fiican oo la sheegay mararka barkood wax maskaxdiina aan geli karin oo ah in $8 milyan maalinkii uu ka qaadanayay programkaas Elon Musk inkastoo lacag fara badan ay ka gashay soo saaridii Donald Trump sida isagaba uu sheegay oo uu ku faanay in la'aantiis Trump uusan madaxweyne noqon kari lahayn haddana sidaan u arko aniga dhowrkii bilood oo uu ka shaqeynayay programka xakamaynta dawladda oo shaqaale fara badan lagu ceyriyay oo qaybo dhan la baaba'shay si loo ururiyo dhaqaalaha ilaa gaaraysa $1 trilyan loo save gareeyo dawladda federaalka ee Mareykanka ninkaas ayaa programkaas watay waxaana kulay lacag fara badan waa uu ka sameeyay laakiin isna lacag fara badan ayuu ku baxshay Trump sidii uu u soo bixi lahaa waxa marka ka dhamaatay ninka odayga ah shaqadii Elon Musk shaqadaasna waxa ay ahayd shaqo inta qof u shaqeynayo dawladda federaalka ah laakiin aan federaali ahayn uu contractor ahaan ama outsider qof dibadda ka shaqeeya oo aan shaqo official ka haysan dawladda federaalka ah waqtigeedii ayaa ka dhamaaday labada oday way ismac salaameeyeen waxa soo baxay biilka uu wado Donald Trump oo uu rabo in uu ka gudbisto
labada aqalka hoose hadda waa uga soo gudbay biilkaas aqalka sare ayuu hadda soo maraya biilka marka waxaa ka maqan dhaqaalihii lagu bixin jiray dowladda federaalka Mareykanka ay ku bixin jirtay sida Trump uu sheegay oo ahayd gunada oo qofka gaariga electriga agata aan gaaska ku socon la siin jiray lacagtii la siin jiray ayuu ka jaray Donald Trump marka arrinkaas isaga uu ku kacay awgeed waxa uu sheegay in Elon Musk uu ka xumaaday arrinkaas isaga ah sidoo kale waxaan meesha ku jirin shardi dhigayay oo stateka California ka soo baxay sharci adag oo dhahayay 2030 ka ama 2035 gaari kasta oo la samaynayo oo cusub oo California stateka ama gobolka California lagu iibinayo waa in uu ahaadaa gaari electric ah oo koronto ku socda gaari gaas ku socda California lagama iibin karo ayaa ku jirtay waxa marka taasna waa ka tuuray oo gawaarida gaas ayay si ahaan karaan ayuu yiri Donald Trump so labadaas arrin awgeed Elon Musk xanaaq badan ayuu muujiyay meeshaasna waxa dhacday in uu cambaareeyo oo uu ku sheego in biilkan hadda socda ama qaraarkan baarlamaanka soo maraayo uu yahay biil oo ka buuxdo xumaan iyo lagu saleeyay cuqdad iyo nacayb ayuu sheegay waxa marka u jawaabay Trump oo isagana geeskiisa iska difaacayo oo biilkiisa ilaashanayo odayga waxa ka hanaajiyay buu yiri kadib markii aan ka saarnay shuruudii ahayd in 2030 gawaarida badankood isteedida badankood laga iibinayo in ay noqdaan gawaari electric ah oo koronto ku socda kaliya ninkan odayga waxa kale oo uu leeyahay SpaceX programka la yiraahdo oo ah cirbixiyanada aada hawada sare waxa qaado shuttle isaga uu leeyahay marka wuxuu sheegay in uu ka joojin doono programka SpaceX in ay isticmaalaan hay'adda Mareykanka u qaabilsan hawada sare NASA inay isticmaalaan waxa kale oo uu ka qaataa SpaceX programkiisa uu leeyahay Elon Musk waxa lacag far badan ay ka qaataan oo contractiyo ay kula jiraan dowladda federaalka ee dalka Mareykanka Trump ayaa waxa uu sheegay in uu programkaas uu joojin doono oo uu asagana maartay ciqaab uga dhigi doono inuu ka joojiyo SpaceX programkii contractigi ay qaadan jirtay inuu ka joojiyo waxa markaa dhacday Elon Musk ayaa waxa uu sheegay biilkan inaan la baasinin sababtoo ah wuxuu sheegay Trump waxa uu harsan buu yiri 3 sano iyo bar aniga laakiin kambanigayga iyo programyadeeda waxay joogi doonaan 40 sano iyo in ka badan waxa marka wixii dhanba si kala isku sii qasay kadib markii Elon Musk uu madaxweynaha dalka Mareykanka ku sheegay program hadda ka hor fadeexad ahaa oo ceeb ka dhacday oo cusla oo neta ninkii ka dambeeyay programkaas oo gabdhaha yaryar iibin jiray uu isku dilay wuxuu isku dilay xabsiga dhexbartankiisa isaga oo ku xiran ayuu isku dilay isaga oo maxkamad ay u socoto faylalkaas iyaga ah buu wuxuu sheegay in Elon Musk baa wuxuu sheegay madaxweynaha in uu qayb ka ahaa sababta uu diiday in faylalka la furana ay arrinkan ay keenayso buu yiri marka arrinka meel adag buu marayaa waa la isfadeexaysanayaa ceebti adduunka ka socota waxbaan qarxinayaa buu leeyahay oo kala kicinayaa ninkii Elon Musk ahaa laakiin arrinkan hadda halkaas ayuu marayaa marka Donald Trump waxa uu yiri ama afhayeenkiisa Levitt amada la yiraahdo ayaa waxa ay soo qortay waa arrin unfortunate abaytri arrin laga xumaado howsha inta uma dhaafayno in uu odaga heerkaas gaaro abaytri inta ayaan ku soo koobaynaa insha Allah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh